Asxaabu sabti waxay ahaayeen qoom Yuhuud oo degganaa agagaarka badda. Waxay jebiyeen ballankii ay la galeen Ilaahay, waxayna rabeen inay khiyaameeyaan, balse waxaa ku soo degay ciqaabkii Alle. Haddaba ay ahaayeen asxaabu sabti, se maxaa lagu ciqaabay markii ay jebiyeen ballankii Alle? Intaaba waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalkeenna maanta. Mahadsanid. Asxaabu sabti waxay ahaayeen koox ka tirsan Yuhuuddii reer banu Israa'iil, waxayna degganaayeen magaalo xeebeed ku taalla badda agagaarkeeda, oo magaceeda lagu sheegay inay ahayd Eyla. Waxaanay haysteen diinta Nebi Muuse. Shaqadoodu wuxuu ahaa kalluumaysiga. Haddaba Yuhuuddii degganayd magaalo xeebeedkan ayaa Eebbe weydiistay inuu u sameeyo maalin ay cibaadaystaan oo aanay wax shaqo ah qaban. Kadib Ilaahay waxa uu faray inaanay wax shaqo ah qaban maalinta Sabtida oo ay cibaadaystaan, balse maalmaha kale oo dhan ay kalluumaysan karaan. Ilaahay ayaa wuxuu ka imtixaanay kooxdan ka tirsan Yuhuudda in maalinta Sabtida ee aanay kalluumaysan karin in uu kalluunku dibadda u soo baxo. Hase ahaatee maalmaha kale ee ay kalluumaysan karaan, wax kalluuna may heli jirin oo mu iman jirin xeebta. Yuhuuddii degganayd magaaladan ayaa u dulqaadan kari weyday imtixaankii, oo waxay bilaabeen inay khiyaameeyaan Ilaahay. Maalinta Jimcaha ee loo oggol yahay in ay kalluumaystaan ayay xeebta dhigi jireen shabaagtii lagu dabayay kalluunka, habeenkiina way kaga seexan jireen, si kalluunku marka uu yimaado maalinta Sabtida uu u galo shabaagtan ay dhigeen. Markii ay fikraddii shaqaysay ayay dadkii degganaa magaaladu u qaybsameen 3 qaybood. Qoladii kalluumaysatay waxay yidhaahdeen, annagu waxaannu kalluumaysanay maalinta Sabtida ah ee naloo oggol yahay. Qoladii labaad waxay ahaayeen qaar u digaya oo leh, Ilaahay ayaa naga xaaraantinimeeyay kalluunka maalinta Sabtida ah, idinkuna kalluunkii Sabtida ayaad kalluumaysateen. Waana khiyaano cad ee joojiya macsidan aad wadaan. Qoladii saddexaad ayaa iyaguna waxay ahaayeen qaar iska aamusa oo gacmaha ka laabta arrinkaas. Qoladii saddexaad ayaa u tagay qoladii u digaysay, waxayna ku yidhaahdeen, maxaad ka waaninaysaan qoom Ilaahay khiyaameeyay oo Ilaahay ciqaab ku soo dejinayo? Kuwii wanaagsanaa ayaa waxay yidhaahdeen, annaga waajibaadkayaga ayaa ah inaan waanino dadka xumaanta iyo macsidan samaynaya. Maalintii dambe ayay dadkii Sabtida kalluumaysan jiray ay seexdeen iyagoo bini'aadam ah, waxayna soo kaceen iyagoo isbedelay oo isku beddelay daanyeero. Markii ay daanyeeradii u tageen ehelkoodii iyagoo aan hadli karayn, ayay ehelkoodii canaanteen oo ku yidhaahdeen, miyaynaan idinka reebin xumaanta iyo khiyaanada maalinta Sabtida ah? Ilaahay wuu ciqaabay kuwii ku soo xadgudbay maalinta Sabtida. Kuwii wanaagsanaa ee uga digay xumaanta wuu ka badbaadiyay ciqaabtii. Kuwii kale iyaguna gacmaha ka laabtay waa la isku khilaafay, in la badbaadiyay in la ciqaabayba. Waxaan rajaynayaa inaad qisadan waxuun ka faa'iideen. Mahadsanid.